بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta. qodobo muhiim ah ayaa soo qaadanaa iyo waxyaabihii ugu dambeeyay iyadoo ciyaaryahanada la kala qaadanayo dalka Sacuudi Arabiyana oo noqday dal markaa inta badan qaadanaya haatan suuqii kala iibsiga qaaradda Yurub isaga ayaa la wareegay. waxaana markaa haddii aad gasho meel kasta ay tahay in markaa ay soo qorayaan sida markaa warbixinadii ugu dambeeyay markaa ay sheegayaan waa dalka Sacuudi Arabiya ee kalena beebe ayaa la isku haystaa. saacadihii ugu dambeeyay waxa markaa loo gaaray 229 milyan halka ninkani markaa uu dooranayo horyaalka Premier League. wuxuuna sidoo kale markaa sheegay in Sacuudi Arabiya markaa uu doonaynin horyaalka Premier League. cid kasta ayaa markaa jecel inay ka ciyaarto mar uun, waxaana haatan markaa lacagaha laga raadinayaa dalka Sacuudi Arabiya halka Cristiano Ronaldo leeyahay ma lacagahan ayaa lagu soo bandhigay Real Madrid iyo dalka Sacuudi Arabiya warniyaho ka faa'iideysa ayuu leeyahay halka xidigan uu yahay xidig uu leeyahay markaa kubadda cagta ka doonayo mustaqbal aad u wanaagsan inuu gaaro ninka lagu magacaabo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Diego Armando Maradona. xidigaas ayuu markaa doonaya inuu markaa ka daba tago. haddii markaa aan fiirino ninkii Lionel Messi ahaa waa markaa weli aad baa loo marxabeynayaa. goolkii Blizonka uu dhaliyay weli waa laga daba cararayaa ninkani keedkii meel uu ku fakado ayuu markaa leeyahay. dalka Mareykankana waxaa qabsaday Lionel Messi Leo mucjisada kubadda cagta xulka waddanka Argentina iyo naadiga lagu magacaabo Inter Miami salaanta way ka dhamaatay ayuu leeyahay xidiga lagu magacaabo Lionel Messi. haddii aan fiirino Manchester United naadiga Atlanta weli waxay ka doonaysaa xidig lagu magacaabo Haaland ayaa markaa leeyahay 60 milyan lacag ayaa haatan markaa u gaartay. wararkii ugu dambeeyay ayaa sidaa warinaya halka naadiga Arsenal ay sheegtay weeraryahanka ninka lagu magacaabo Avalon Bengham inuu markaa isku diyaariyo tababar aad u ballaaran kadib safarka dalka Mareykanka ay markaa leeyihiin xidig lagu magacaabo Wabligan ayaa markaa sidaa loo soo jeedinayaa. waxaan fiiri doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay haatan suuqa kala iibsiga markaa saaran iyadoo kalena beebe aad moodo xoogaa inuu degay shaashadaha waa ka degay lacagihii faraha badnaa ayaana markaa shibiyey ayaa leeyahay taageerayaasha iyo sidoo kale ragga markaa ciyaaraha kubadda cagta markaa xiiseeya. haddii markaa aan fiirino iyadoo dalka Sacuudi Arabiya aniga ayaaba yaabanba Sacuudi Arabiya meel kasta oo gasho Sacuudi Arabiya ayaa markaa saaran. haddii aan fiirino naadiga Nens ayaa 18 milyan markaa la sheegay inay kula soo sayaatay xidig lagu magacaabo Jamie Boga kaasoo Atlanta markaa ka yimid, waxaana loogu dari doonaa lacaga kale ayaa markaa leeyahay. xidigani qatartiisa ayuu markaa leeyahay iyadoo naadiyaasha qaaradda Yurub aad markaa isku hubeynayaan. haddii aan fiirino naadiga Atlanta sidoo kale Everton waxaa markaa la sheegay inay siisay ninka waxaa leeyahay naadiga Atlanta ayaa haatan markaa ka cabanaysa ayaa leeyahay naadiga Everton waxaana markaa isku haysteen ayaa leeyahay ninka lagu magacaabo El Bilal Toure kaasoo markaa la sheegay in naadiga lagu magacaabo waa naadiga lagu magacaabo Everton haatan markaa ay aad ugu dhowdahay. haddii markaa aan fiirino ninka lagu magacaabo Moussa Dembele ayaa markaa ku biiray naadiga Al Ittihad waxaana markaa la sheegay in 4 sano heshiis markaa uu la gaaray. caafimaadka ayuu markaa mari doonaa ayaa markaa leeyahay John Henderson, Steven Gerrard oo tababaro noqday ninkan oo markaa ka yimid naadiga Club Braga ayaa markaa leeyahay xidiga dhowr oo markaa xidig kale oo markaa Club Braga ka yimid ayaa markaa jira lagu magacaabo Jake Henry ayaa markaa leeyahay naadiga dalka Sacuudi Arabiyana aad bay markaa isku hubeynaysaa. haddii aan fiirino Wolves Zaha ayaa ku biiray naadiga lagu magacaabo Galatasaray ee dalka Turkiga. wararkii ugu dambeeyay caafimaadka waa uu ku guuleystay ayaa markaa leeyahay. haddii markaa aan fiirino Didier Drogba ayaana markaa ka hadlay wuxuu leeyahay ninkan mustaqbal wanaagsan ayuu markaa lahaa laakiin waxa laga yaabaa kubadiisa cagta inay horumarto ayuu leeyahay. naadiga AC Milan waxay markaa soo gabagabaysay ninka lagu magacaabo Zama Jugwaza kaasoo naadiga Villarreal markaa ka yimid heshiis ayana markaa la gaarto oo lacageed waxaana markaa la sheegay 20 milyan lagu daray 8 milyan oo waxyaabo kale markaa loo isticmaalayo. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan naadiga West Ham United in haatan markaa naadiga Chelsea ay ka doonayso ninka lagu magacaabo Ken Kalaja kaasoo markaa la sheegay 40 milyan lacagana markaa ku doonayso. Mauricio Pochettino ayaana markaa arrinkan aad kaga doodaya. ninkan wuxuu doonayaa in ciyaaryahanada markaa isku ceshto iyadoo Nicolas Jackson iyo sidoo kale Nkunku uu leeyahay midkood waa inuu ku soo bilowdaa ayuu leeyahay ciyaaraha kubadda cagta ee ciyaarayso naadiga Chelsea ama Manchester United. ninka lagu magacaabo Xavier ninka lagu magacaabo Ambrad ayaa markaa liiska xilli ciyaareedka markaa ku darsanaysa halka Harry Kane
uu sheegay in naadiga Manchester United marka uu doonayo halka Kylian Mbappe laga yaabo si lama filaan in naadigana marka ay ku soo qaadato wararkana haatan way ishiban yihiin suuqa kala iibsiga waxa leeyahay Harry Kane iyo Kylian Mbappe isha ayaa lagu hayaa la yaab ayaana marka ka dhici doona haddii marka aan fiirino waxyaabaha kale Ismail Azari ayaa marka 5 sano heshiisa marka la sheegay in naadiga lagu magacaabo Watford oo marka ugu biiray 13 milyan ayaa leeyahay waxyaabaha kale haddii marka aan fiirino waxyaabo kale ayaa marka jira naadiga Atlanta waxay heshiis marka la gaartay ayaa la xidiga naadiga Almeria ninka lagu magacaabo Al Bilal waa Everton iyo waa laga tagay ugu dambeyntii halayto ayaa 27 milyan lacag lagu diray 2 milyan ay ku soo gabagabaysay ayaa leeyahay naadiga Atlanta naadiga Evertonna godkeeda ayaa biyo kulul marka loogu shubay Everton waxa leeyahay way bixi weysa lacagtan ayaa haatan marka la warinaya waxyaabihii ugu dambeeyay ayaa sida marka warinaya ninka lagu magacaabo Sergio Romero ayaa marka la sheegay in uu marka la sheegay haatan isagana uu saaray naadiga Hasbridge ayaana marka laga yaabaa ayaa leeyahay ninkan inuu marka ka tago naadiyaal dhowra ayaana marka doonaya Xavi Hernandez wuxuu doonayaa naadiga isbedel inuu ku sameeyo naadiga Barcelona waxyaabihii ugu dambeeyay ayaa sida warinaya Samuel Umtiti ayaana laga yaabaa xidiga kale oo marka Tottenham aad marka ay u xiisanayso gudahan wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana waana inta nabadgelyo